haddii dhabarka aa ka dareemaysa xanuun ama culays ama kala goysyada yacni ay ku xanuunayaan sida kuwan dhabarka iyo jilbaha iyo wax lamid ah misna aad tahay dadka yacni cagahooda ama lugahooda oo qalooca oo ku jiro oo sida hadda sawirkan yacni qofkan hortiina ka arkaysaan lugtaada oo sidaan oo kale ay tahay ama sidaan oo kale ay tahay yacni gudaha ay ku jirto saa arkaysaan saa u qaloocan tahay ama dhankan oo kale ay u qaloocan tahay ama xagal saas u soo laaban ee leedahay maaragtay saanay usoo qalloocanta si sawirka ka arkaysaan ama jilibka yacni uu gudaha kusoo galay ama cagtaada markaa fiirisay ay qalloocan tahay oo kab iyo wax markaa muddo dheer xirato kabtaas markaa muddo dheer isticmaasha arkaysa in qallooci lugtaada ay lahayd kabtii ay yeelanaysa qaabkeeda dee kab jilicsan ay tahay oo sidaa kale sawirka hortiina ka arkaysaan yacni jirkaada aad dareemaysa garbahaada oo kale inay kala qalloocaan ama kala sareeyaan lugahaada oo kale inay kala dheer yihiin wax lamid ah ama qalloocaas oo ku jiro aad sida sawirkan ka arkaysaan qofkan يعني saa arkaysaan qofkan hadda waa qof toosan oo sax ah qofkan kalena saa arkaysaan dhabarkiisa wuu kala qaloocan yahay garbihiisa way kala sareeyaan saa arkayseen lugihiisa sidoo kale way kala qaloocan yihiin qaybta hoose cirbaha marka qofba meel waaye qofba si waaye sawirkan kala fiiriya qofkan yacni lugta sidaan oo kale haddii gudaha ugu jirto jilibka sidaan oo kale gudaha ugu jiro qaloocan yahay waxaa dhacaya ma aragta qofka in xanuun uu ka dareemo lugtii maadaama inta badan oo ayada ku taagsanayo labada lug ay kala gaabanayaan ayada uu ku taagsanayo yani aan ula jeedo yani culayskan ayada uu saarayo markuu taagan dhinac uu qofku taagan yahay waxaa dhacaya inuu xanuun ka dareemo dhinacaas uu jirka culayskiisa oo dhan uu iskugu geeyay sida caadiga waxaa la rabaa qofka culayskiisa yani jirka oo dhan inuu ku wada dego oo labada lugood dhabarka labada dhinac dhan uu ku dego marka qofka inta badan oo yani lugihiisa ay qalloocaan ama ciribta oo kale ay qalloocdo waxaa dhacaya maaragtay in culayska dhinac uu ku dego marka waxaa dhacaya in dhabarka dhinacaas jiro iyo lugta dhinacaas jirto qofka oo xanuun ka dareemo sida hadda xariiqa meelaha la saarayo halkaas oo kale inuu xanuun ka dareemo jilibka qaybtan gadaal halkaas oo kale inuu xanuun ka dareemo dhabarka qaybtan gadaal inuu halkaas xanuun ka dareemo qoorta qaybtan gadaal oo dhinacan yani xigta marka hal side hal dhinac oo gadaal ah ayuu qofka xanuun ka dareemayaa waana wax inta badan dhaca qof marka istaalin oo tagaa laga yaabaa yani dhakhtarka uu sheegay hal dhinac oo yani qoorta ama dhabarka qaybta hoos ilaa lugta inuu xanuun ka dareemayo marka inta badan waxaa la sameeyaa qofka sidaan oo kale loo istaajiyaa lugihiisa la fiiriyaa yacni ma siman yihiin mise qallooca ku jiro haddii qallooca ku jiro lugta ama dhinaca oo qallooca ku jira ayaa ah wax dhibka keenayo oo dhabarka xitaa neerfihii cadaadis ayaa koraayo oo pressure badan ayaa koraayo qofka neerf xanuun neerfahaas intii la lugta ayuu dareemaya dadka qaarna dhabarka ciladooda ma jirto oo lugta qaybta hoose waaye marka waxaa dhacaya in oo lugta oo ka dareema xanuun cirba xanuun fara badan oo dareema ciribta dhankaas jirto kale xanuun badan oo ka dareema ama gubashii wax lamid oo ka dareemo ayaa dhici karta marka xaaladan oo kale markay jirto qofka waxaa loo sameeyaa ama waxaa mataqaanaa inta badan lagula taliyaa inuu xirto number one kaba adag oo buud ah yacni kaba furan xiran ayaa la dhahaa maadaama cabirkii labada lugood isla sineen ama qallooc oo jiro kabahan yacni oo xiran ayaa fiican gaar ahaan gabaha xirkaha le ayaa fiican kabaha yani xirkaha lagu adkeyn kara ayaa fiican saa arkaysaan sidaan oo kale qofku u xiraayo sidaan oo kale yani kaba xerig le ayaa fiican sidoo kale kabaha inuu geliyo bahalladan oo loogu talagalay noocyo adag ayaa jiro marka ayaga maxay faa'iidadooda tahay faa'iidadooda waxay tahay in postureka ay saxaan shaybka qaabka inay saxaan oo lugti qallooci ku jira inay toosiyaan oo muddo qofku markuu isticmaalo kana ilaaliyaan lugta yacni in dhinacii usoo janjeersato ee u qalloocday marka hadday taas dhici marka maxaa dhacaya marka taas dee muddo uu qofka u isticmaalo sida hadda sawirka horta ka arkaysaan qofkan before ay ku qoran lugta saan oo kale u qalloocneed muddo markuu isticmaalo fiiri bahalladan caagan la geliya kabaha lugta saan oo kale ayay noqotay waana wax xaqiiqo maaragtay la sameeyo sidoo kale hadda qofkan kala fiiriya sawirkiisa arkaysaan yacni qofkan hadda lugtan saanay marka hore ahayd waa tusaale loogu talagalay saanay haddana noqotay marka mar walba qofku way fiican tahay kaba xiran inuu gashto يعني aad ayuu anfacaysaa oo marka lugtaas pressureka koraya iyo cadaadiska uu ka dagaa xanuunka dhinaca sinta dhabarka ilaa kor uu ka dareema ilaa qoorta ilaa dhabarka hal dhinac uu ka dareema ilaa lugtana xanuunkaas qofku uu deynayaa haddii uu muddo dheer oo isticmaala ayaga ayaa kala fiican dhakhtarkana kala tashta ayaa fiican cabirka lugtiisa la fiiriyaa mid laag ayaa isticmaal la dhahaa kaba xiran ku xiraa allah oo haddana xerig leh marka lugtii waxay u diidayaan maalmaha hore inaa xanuun dareentaa laga yaaba maadaama lugtii u diidayaan inay qallooceeda kusii socoto marka lugta saas ayay ku toosaysaa maaragtay aadayna ku anfacayaan oo xanuunka dhabarka qaybtan gaal ilaa lugta ka dareemaysidna nafis fara badan ayaa ka dareemaysaa haddii aa xirato markiina fahanteen ayaa rajeynayaa asalaamu calaykum